waayadan ay sii hormaraysay aqoonta loo leeyahay abuurta aadamuhu waxa la ogaaday arrimo badan oo ku saabsan habka ay maskaxda basharka aadamuhu u shaqayso. waxa kale oo la ogaaday siyaabo badan oo wax looga dhaadhicin karo maskaxda bini'aadamka, waxyaabaha oo aan lagu qasbin. aragtidan waxaa ikhtiraacay oo dhaqangeliyay markii ugu horreysay Paul Jofflis oo noolaa 1897 ilaa 1945. Jofflis wuxuu ahaa wasiir ka mid ah wasiiradii taliskii Hitler xilligii uu waddanka Jarmalka xukumayay. tusaale ahaan haddii aynu aragtidaas soo dhaweyno, laba shay oo labadaba adigu aad soo xushay baad qofkii hor dhigaysaa, kala dooraad odhanaysa. qofkaasi inuu xorriyad wax ku doortay ayuu isagu malaynayaa, laakiin labada ka doortaaba dan adigu aad leedahay uu xilligii uu waddanka haystay. ninkaasi wuxuu ku soo biiray xisbiga shuuciga ee Hitler 1923 markii wasiirka barabagandada iyo beenta ee dacaayadka faafiya. ninkaasi wuxuu ka mid ahaa wasiiradii Hitler xukunkiisa la bilowday lana dhamaystay ahmiyada uu leeyahay. Hitlerna wuxuu ku dardaarmay markii xataa uu dhimanayay ninkaasi inuu madaxtinimada kala wareego waddanka Jarmalka. kadib uu kala wareegay madaxtinimadii markuu Hitler meesha ka baxay. xaaskiisii iyo caruurtiisii markuu qol dhulka hoosteeda ageeyay. hase ahaatee maalin markuu hayay xukunka waddanka ee ay talada xumaatay ayuu ku noqday halkii ubadkiisa iyo xaaskiisa uu geeyay. halkaasay sun ku cabeen oo ay isku dileen. mid ahaa hadaladiisii oo laga soo wariyay wasiirka shaydaaniga ah, beenta ku celceli run ayay noqoneen. waxa kale oo ka mid ahaa, marka aan maqlo ereyga aqoon waxaan haabhaabtaa baaskooladayda. ay sababtu tahay aqoonta waa necbahay oo ma doonayo dadka aan maamulay inay wax ogaadaan. waxaan se rabaa dad warbaahinta marka aan hadal uga jeediyo sida jabaq soo celinta oo uga dhexdaya ama hadalka aan warbaahinta uga jeediyay oo waxaan idhaado maahay aan wax kale ogeyn. waxa kale oo hadaladiisii ka mid ahaa, waxaad ishiisaa warbaahin bilaa akhlaaq iyo bilaa damiir ah. waxaan ku siin dad weel madhan ah oo bilaa garasho iyo bilaa garaad ah. aragtiyaha ninkaa haddii aynu ku sii soconno, waxa ugu weyn ee imika tiirarkayga ku taagani waa waxaan la yidhaha dimuqraadiyadda. dimuqraadiyaddu waxay shacabku doortaan maahina wax loo soo asteeyey bay kala doortaan. shacabkuna waxay u haystaan waxay iyagu doortaan. ciddan kala doorta laleeyahay waa cid lasoo asteeyey ama lasoo magacaabay oo la hor keenay ee dadku iyagu may soo kaxaysan oo meesha may keenin oo ma dooranayaan. tusaale ahaan, laba xisbi baa la hor keenayaa, labadaa xisbi baa la odhanayaa dadka kala doorta. labadaa xisbi waxa soo magacaabay ciddaa dabadeeda waxaan ka maamulaysa. dadkiise waxay u arkayaan in ay xorriyad iyagu wax ku doorteen. daw ee loo jeexay mid ka mid a unbay dadkaasi dooranayaan. aragtidaasina waa aragtida edegeynta ama soo oodidda caqliga basharka. oo basharkii xeraa loo soo oodayaa, xeradaasi wixii loogu dhex keenay bay kala dooranayaane wax dhaafsan maba oga oo isma weydiinayaan. ee waxaan la hor keenay inay xorriyad ku dooranayaan bay u arkaan. hase ahaatee xaqiiqdu taa way ka duwan tahay. tusaalayaasha haddii aynu kusii soconno, iminka haddii qoftooda idinka dhaxayso oo aad laba shay soo hordhigto, labadaa shay qofka tidhaa horta ugu horraynta uu ka maagayaa qofkaasi. haddii uu hadal kale yidhaayu isa sii dhaafinayood mar labaad ugu celisana, labadaa mid buu ku toosayaa. qofkaasi caqligiisii si aanu dareensanayn baad adigu dantaada u dhex marsatay. isagiina waxau isku arkayaa labadii inuu xorriyad u kala doortay. aragtidana waxaa loogu magac daray ninkaa markii ugu horreysay dhaqangeliyey ee Jofflis ee wasiirada Jarmalka ka mid ahaa. markastoo la ogaado ama la daax qaado aragti ku saabsan cilmiga nafsiga ee basharka aadamaha, waxaa jira shakhsiyaad danahooga gaarka u adeegsada oo ku takrifala. aragtidan markii dambe waxay noqotay aragti siyaasadeed oo siyaasigu danihiisa qallooca u adeegsado. dadku si aanay ogeyn oo ay u maleeyaan inay xornimo wax ku doortaan iyo rabitaan iyagu ay leeyihiin iyo wax ka soo go'ay oo habeen iyo maalin iyagu ay kala doortaan. aragtidan haddii loo adeegsado nolol maalmeedkeena caadiga ah, tii oo aan dana gaara lagu bulshanayn oon cid lagu hagardaamaynayn, waa wax iska caadiyo oo dhibaato ma leh. tusaale ahaan oo kale, iminka haddii aad adiga qaar asxaabtiina inaad meel tagtaan doonaysaan, meesha as tiraadaan iyo 8 markay tahay baan tagnaa mise 9 markay tahay baan tagnaa, waa caadi mid bay koranayaan ama 8 aynu tagnaa ama 9 aynu tagnaa. marka aragtidu nolol maalmeedka caadiga loo adeegsado. marka dhinaca marka aynu ka istaagno aragtidaasi waa sax ma garanaysaa. laakiin marka dana